hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo barta Wellmeters ayaa soo gudbiyay xog ururinta kiisaskii ugu dambeeyay ee COVID-19 guud ahaan caalamka, waxaana xaaladaha cusub ay gaareen 684,613 halka dhimashadu ay gaartay 13,872. tobanka dal ee ugu badan kiisaska COVID-19 ayaa kala ah Mareykanka, Hindiya, Baraasiil, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska, Turkiga, Talyaaniga, Isbayn iyo Jarmalka, waxayna dhammaantood madaxa geliyeen kiisaska malyanka ka badan. Ingiriiska weli xaaladiisa ma sal fadhiso maadaama si joogto ah xanuunka looga helayo muwaadiniin. Sababta kororka waxaa lagu sheegay in isbeddelka cimilada maadaama laga gudbayo xilliga cadceedda loona gudbayo waqtiga qaboobaha ama barafka. boqortooyada Ingiriiska ayaa xaqiijisay ahaan in dalkeeda laga helay 2,774,479 kiis guud ahaan dalka UK. Xukuumadda London ayaa qaadatay go'aan ay ku xadidayso socodka dadka si looga fogaado xanuunka COVID-19 oo gaaray dadka badqabay kadib markii baaris lagu sameeyay ay natiijadaasi ka soo baxday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Britain. Dalalka meesha ugu hooseeya ku jira waxaa ka mid ah Soomaaliya oo booska 152 guud ahaan kala sarreynta dalalka ka joogta, halka fooqa sare ay ka galeen wadamada dhaqaale ahaan, caafimaad ahaan iyo horumar ahaan isku tiriya inay ka wanaagsan yihiin dalalka kiisaska yar.